xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku howlan sidii xirfadlayaasha caafimaadka kor loogu qaadi lahaa garadkooda aqooneed wuxuuna xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya uu tababar u qabtay 139 xirfadle caafimaad oo ka kala socday gobolada Shabeelle City Afdheer Liibaan iyo Daawa tababarkan oo ku saabsan barashada nidaamka casriga ah ee maareynta xogta caafimaadka afka qalaadna loogu yeedho District Health Information System 2 muhiimadda tababarkan ay tahay in qaatayaasha la baro nidaamkan cusub ee lagu soo gudbinayo xogta caafimaadka si loo ogaado xogta caafimaadka ee degmo ilaa heer deegaan furitaankii tababarkana waxaa ka soo qayb galay oo ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Caydaruus Axmed oo soo jeediyay muhiimadda uu tababarkani xambaarsan yahay tababarkan ayaa waxa ujeedadiisu u weyn ay tahay in aad si dhib yar aynu u helno xogta adeega caafimaadka si aynu u isticmaalno ama goobaha kala duwan ama qaybaha heerarka kala duwan ee ay bixinta adeega caafimaadka heer deegaan ilaa heer xarun in ay u qaadaan tallaabada ku habboonayd marka adeegan ama databasekan cusub oo ah adeeg cusub oo aynu kaga guurayno kii hore ee HMS-ka loo yaqaanay oo aynu u guurayno kan loo yaqaano DHIS-ka ama District Health Information System-ka kan oo ah mid ka fudud kana casrisan idinna sahlaya xarun kasta in ay wajiga ay leedahay ama heerka ay taagan tahay ama degmo kasta heerka ay taagan tahay in isla markaaba ku ogaato isagoo markaa database-kan u shaqayn doona nidaamka offline-ka iyo sidoo kale online-ka labadaba u shaqeeya tababarkan lagu baranayo nidaamka macluumaadka xogta caafimaadka ayaa wuxuu socon doonaa muddo 4 maalmood tababarkanna wuxuu yahay kii saddexaad ee loo qabto xubno ka kala socday gobolada deegaanka barashada systemkan lagula soconayo xogta caafimaadka ayaa wuxuu wax weyn ku soo kordhinayaa ogaanshaha xogta guud ee caafimaadka deegaanka